munaasabadan oo ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen saxafiyiinta Jubbaland laguna maamuusay maalinta madaxbannaanida saxaafadda caalamka oo ku beegan 3 May ayaa waxay maanta ka dhacday Hotel Kismaayo ee magaalada Kismaayo waxaana munaasabada ka soo qayb galay xubnaha labada gole ee maamulka Jubbaland oo uu horkacay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa goobta ka hadlay siyaha gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Jubbaland Jeeja Qadar Maxamuud Xareeda agaasimaha warbaahinta Jubbaland Cabdinaasir Sheekh Bashiir iyo sidoo kale agaasimaha kulmiya Barays Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxaana hadaladooda kamid ahaa dhammaan wariyaasha kala duwan qiimaha leh ee ka soo qayb galay munaasabadan lagu xuseeyay 23 guuradii ka soo wareegatay maanta oo ku beegan 3 May oo ah maalintii loo asteeyay maalinta saxaafadda adduunka runtii waa maalin aad nawqaali ah waana ku faraxsanahay aad baan ugu dabaaldegaynaa in magaalada Kismaayo ay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon ee wariyaasha ka howlgalo aanan lagu dhibaateenin aysan dhibaatooyin xariga la kulmin dhibaatooyin cadaadis aysan kala kulmin maamulka ka arrimiya taasna waanu ku amaanaynaa maamulka sida amniga iyo wariyaashu ay u tixgeliyaan maalintan waxaa madaxweyne loo asteeyay in lagu baraarujiyo madaxda iyo bulshada muhiimaddu ay leedahay xorriyatul qowlka iyo xorriyadda hadalka uu leeyahay sababtoo ah wadamada hadda aad u horumaray sida Mareykanka oo kale iyo wadamada aad u horumaray waxay horumarka ku gaareen xorriyatul qowlka haddaan Jubbaland u soo dhaadhaco maanta way ka duwan tahay 3 sano ka hor meeshii joogtay hadda laba idaacadood baa ka jirta magaalada Kismaayo baar dheer idaacada ku taala doolow idaacad kala ku taala ya 3 waa Kismaayo idaacada Quraan Kariimka ugu dambeysay oo dhawaan la furay waxa aan gobolada kale Soomaaliya waxa lagu tiriyaa meelaha ugu badan saxafiyiinta wax lagu yeelo laakiin Jubbaland wariye lagu madilin wariye lagu xiray maalintan oo kale waa maalin ay saxaafaddu ku garowsato intii ay shaqeynaysay sanadka caqabadihii soo wajahay marka sanadkan aan hadda soo shaqeynaynay dhacdooyinkiina soo wajahay waxa kamid ahayd wariyihii Soomaaliyeed ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u shaqeynayay 3 bishii December lagu diray magaalada Muqdisho wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo iyada horteedna saygeedii sidaas oo kale loo dilay sanadkan inuu ahaa sanadkii cadaaladda oo dad shaqoolo u mileeyay saxafiyiinta Soomaaliyeed in maxkamadda la hor keenay waxa sidoo kale goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Jubbaland Geele Aadan Maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud waxaana ay sheegeen wasaaradda warfaafinta dawladda Jubbaland waxay garab taagan tahay saxafiyiinta caalamka kuwa Soomaalida kuwa Jubbaland waxay diyaar u tahay inay horumariso tababaro u hesho dhaqaale u hesho saxafiyiinta reer Jubbaland barbaariso inta ay maanta yihiin inay laba laabto xafladda xigta hadii Ilaahay idmo saxafiyiinta caalamka waxaan balyeynaya maalinta saxaafadda adduunka kuwa Soomaalida gaar ahaan kuwa Jubbaland waxaan leeyahay hambalyo halgud waxa way walaalayaal annaga waxaan naga wakiila media waxaan nooga sheegaa naga qoriyay wax fiican naga sheega hadaa qaldaran nasaxa la toosiya ee xogaana barabuga kor awdina hoos noogu sheega wakiil baa naga tiin gabdhahan waxa leeyahay alla soo hormari gabdhahan ugu dambeyn waxa baahda saxafiyiinta caalamka u hambaliyay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu yiri waxaan maanta marka ciida kala qayb qaadanaynaa warbaahinta dawladda goboleedka Jubbaland oo halka joogta iyo Soomaalida guud ahaanba marka waxaan idin leenahay hambalyo oo aad khataraha iyo maxay ahayd wax la'aanta iyo aad ugu dhabar adeegaysaan oo adinka howlihiina ma shaqo gudinay Soomaaliya aan ognahay dad badan inay ku dhamaadeen oo shaqadooda dartooda loo dilay lagu bartilmaameedsaday sidaan haddana aanad shaqadii ku joojinin oo wili aad u shaqeynaysaan ummadda Soomaaliya si ay warkii aad u gaarsiisaan xaqiiqooyinka meelaha laga shaqeynayo ka jira aad ugu dhabar adeegaysaan gulihiina saxaafadda
waa idinku ammaanaynaa insha allahu tacaala waxaan idin rajaynaynaa inaad ka bixi doontaan idinkoo xur ah oo meel walba idinkoo free ah meel walba idinkoo imkaaniyaadkiinii aad u baahnaydeen helaya in aan insha allahu tacaala sinooyinka nagu soo aadan aad heli doontaan waxaa idin leenahay hambalyo. 3 May waa maalinta loo aasteeyay saxaafadda adduunka isla markaasina maanta oo kale waxaa munaasabado kala duwan oo maalintan lagu xusay ay ka dhacdaa guud ahaan daafaha caalamka. Maxamed Qaasim Cali Waxar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.